tusaale hadda magaalada xamar qaabkee amnigeeda loo sugaa qarxada si ay u imaanayaan taasoo kale kuma fiirin kartid marka traditional security waagi hore waxaad arkaysaa sagaashameeyadii ka hor dagaalka inta badan waxaa waday oo lacagta bixinaya maalgelinaya dowladaha lacag dadka taksiga ee cashuuraha ay soo aruuriyaan dagaalada lagu maalgelinaya dowladda saas dagaal ku galeysay laakiin hadda waxaa arkaysaa dadka dagaalamayo inay leeyihiin sourceyo kala duwan ay ka helayaan lacagaha qarashaadka waxaa arkay qof jidkaas iska maraayo dagaalama haddana waxaa arkaysaa dad bas iska saaran ama meel isugu yimid sidanan oo kale dhibaato loo geysanayo sababtoo ah waxaa isbedelay actionkii ama aan dhahay actorskii dagaalka ku lug lahaa waxaa isbedelay means of warfare wixii la dhahay qaabkii loo dagaalami jiray ayaa isbedelay oo hadda waxaa arkay qofaas suun soo xiranayo meel uu soo istaagaa wuu isqarxinaa qaabka ama caqiidada ama motivationka loo dagaalamayo xataa wuu isbedelay oo awalka hore waxaan arkaynay qofka wuxuu aaminsanaa waddanka inuu dhimanayo soo ma markii 90 wixii ka horeeyay in waxa qofku waddankiisa uu leeyahay dhiiggiisa uu dagaalamayo waddanka laakiin hadda waxaa arkaysaa in waxa waaye fikir badan runtii waxa waaye ay isdaba socdaan runtii maadaama dynamicski iyo wixii lagu cabirayay amnigaba uu isbedelay in waxa waaye amniga naftirkiisa lagu fiiriyo perspective weyn runtii baahida lagu fiiriyo climate-ka ama cimilada isbedelaya ama ecologicalka lagu fiiriyo in lagu fiiriyo dhaqaalaha in lagu fiiriyo in human security-ga naftirkiisa in lagu fiiriyo so waxyaabahaas oo dhan waxyaabo runtii iskabayo waxa waaye dhibaatada weyn sababaya runtii in waxa waaye bambada marka u dambeysay ay qaraxdo so waxyaabahaas oo dhan haddaan wax laga qabanin way adkaanaysaa runtii waxa waaye in amniga wax laga qabanaa la dhaho ama amniga laga hadlaa Soomaaliya dadkeedu waxa waaye waa dad aan iyagiina israbin dunidana ay ku dhibanta cadaaladdu waa halbeega bini aadamka lagu noloshiisa lagu cabiro dada waxay iska soo dhiibeen nimanka argagixisada waxay isku soo dhiibeen dawladda waxay ku darsoomeen dawladda waxay ku yihiin dadkaas soo dhiibay iskumaysan soo dhiibin dan oo يعني أما واحد كيمت معه واحد سو ديبان واحد تان إن أي كده كلوميستان دولته إن أي أود كده يشان لاما إن أي كده يشان دولته ما تجرتها أي جوج صفقوقة ضدك كأركتد الدول عن لو استعمال شاتك دولته لو ظلم من ضدك قفك هدو كأركتد وين هاي وكأركتد وين هاي يعني معنيه ما هن إن أنا ربا إن ضلك بربريا لكن قاب كاد وحوضة وقاب قلدن إن كوير هذا ورولانو ماشان واتكو قلدن هاي ساس وحبو مجران سنة وحجران هدي حتى اللي سكو كينواي ما هن إن هذا عن جوبته أما حبس إنجليزي الله يحيرو هو بدن أو ترى بدن أو عيدا ما هو كلا دوانا يا عيسى عدة واحد اللي يسي عدة كلمات تقانين رونهانتي وحاجوجو ilaa dhowr wadan intelligence-yadooda dalka ku nool oo arrimo kala duwan ugu nool oo dana qaasa wata waxa inta badan dalka lagu dilaa oo aysan xitaa ahayn wax kaliya in al-shabaab iska sameeyay aysan ahayn gacmo shisheeyana ay dalku ku salaamaya jaaliyada reer Holland aniga martiya ahay mural hada maanta kuma soo talagelin runtii si waxaan uga soo qayb galay at least haddaan maanta Holland mid oo leeyahay challenge ku mayso dood cilmiyeed ay jiro saas darteed ayaan u ajiibay oo ku faraxsanahay maanta reer Holland inaan isku helo ayagoo group meel joogan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulligeen salaan kadib runtii siyaasadda waa isbedbedesha sida waqtigu isu bedelo qoraxda iyo maxaan ku iraahdaa marna u soo baxda marna u dhacday siyaasadda Soomaaliya noqotay siyaasaddu waana fadhida mana fadhida hadaa fiirsid laakiin aniga waxaan u daayay walaalkay shookar sidoo uga hadlay really waa dood cilmiyeed aad ugu fadhiyo xaqiiqda ka jirta dalka maanta waxa waaye dhinaca siyaasadda markii la yiraahdo dhinaca amniga markii la yiraahdo runtii waa ka wada dheregsanahay walow ani hadda bil ka hor aan ka soo tagay Soomaaliya oo laga yaabo inaan kaga wada dambeeyay welina waa ku dhex jiraa روتينك سياسة أو عن كشقينا وزارة الأرماد بدأ مركا ضد علميات كان مامتي
saabsan siyaasadda iyo security aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo qaybta haweenka. Haweenku waxa waaye markasta waxay door ku leeyihiin dhinaca siyaasadda, dhinaca amniga iyo dhinaca arrimaha bulshada. Saddexdaba waxa waaye iyaga markasta waxay ku leeyihiin door xoog leh ku leeyihiin. Dumarka waxa waaye dhinaca siyaasadda hadda markii la dooranayay gabdhaha baarlamaanka oo kale runtii gabdho badanaa kacay, ururo badanaa kacay. Waxaan raadinaynay inaan wixii waagii hore aan helno wax ka badan helno, laakiin weli ma dhicin. Dagaalkii raggii annagoo noo socdaa oo dhinaca dumarka xagga siyaasadda oo la rabo baarlamaanka inay ka mid noqdaan golaha wasiirada runtii aad ay xoogaa gaabis u tahay, laakiin waa jeclaan lahayn insha Allah mustaqbalka dambe dadka waliba dadka dibadda joogo oo u badan inay barteen priority-ga qofka haweenka leeyahay, gurigii, noloshii, shaqadii, wixii oo dhan inay isku hayso, inay awooddo maanta dalka hadday tagtaan inay ka samayn karto isbeddel xoog leh. runtii waxaan qabnaa dumarka wasaaradaha ay joogaan. Hadda ka hor wasaaradda arrimaha dibadda mar waxaa wasiir noo ahayd Fawziyo. runtii wasiiradaas markay joogtay isbeddelka ay ku sameysay wasaaradda oo hadda walaalkay uu ka hadlay shooka uu yiri dadka deganaa gadaal waxay u sameysay dadka degan gadaal in laga raro, in guryo magaalada laga siiyo, lacag ay ku guuraan in la siiyo. Intaas waa dhex joogaan. Marka yani isbeddelka ay raadinaysay iyo bilicda wasaaradda halkaas ay kasoo bilowday. maanta alxamdulillah markasta waxaa lagu bixiyaa dhaqaale aad u badan say u qurux badnaatay, laakiin still ma qurux badnaanayso marka ay dhinac ka degan yihiin. dadkiina markaad fiirisid runtii waa dadka degan meesha waa dadkii soo badbaadiyay wasaaradda waagii dagaalada aad ka jireen, dadkii u dagaalamay, dadkii maxaan ku iraahdaa wasaaradda kaliya la bilaqaysan ee dukumentigeedii ee tuzad yaalla ilaa waagii Maxamed Siyaad Barre ahayd wasaaradda. marka badbaadintaas darteed waxaa la rabay waliba in dhaqaale inta la siiyo meel la dejiyo. waliba suuroobi laada waa iska daba jiitantay ilaa hadday soo gaartay. marka haweenka waxaan ugu soo qaatay isbeddelka ay ku sameeyaan siyaasadda waxay ka tahay number 1 wasaaradahay tagaan runtii isbeddel xoog lahaa ka dhaco sidaan aragno. security-ga waxaan hubaa ayadana walow oo iska jiro xaaladda dalka ku jiro aysan xaalad fadhido, laakiin amniga laftirkiisa gabdho waxaa jiro taliyayaal ciidan oo ku jiro, gabdho waxaa jiro ciidan oo qoryaha qaato oo dagaalka galo. security way ka qayb qaataan dumarka. marka insha Allah waxaan rajeynaynaa jiilalka dambe inay wax badan fahmi doonaan in dumarka aad loogu taageero in siyaasadda ay soo galaan. ayadana waxaan rabaa inaan wax ka taabto arrimahan ayaamahan socdo jinsiga. runtii waa xoogaa waa la bedbedelaa, miidiyuhuna waxay u sameysaa wajiyo kala duwan. ma aha sida hadda dadka usii fasirayaan. waxaa dadkii iska jeclaadeen miidiyaha inay ka dhigaan meesha dadka lagu eedeeyo, meesha lagula dagaalo iyo meesha lagu xumeeyo. laakiin genderka marka la leeyahay macnaha ayaga marka loo soo dhiibay u qaadeen waa genderka in yani equality laga dhigo, la yiraahdo dumarku ha helaan xuquuqda ay ku leeyihiin meel walba oo dowladda ah. marka xoogaana haddana si kala loo bedelay. marka insha Allah iyadana waxaan gabdhaha dhibaatooyinka loo geysto, kufsiga, waxbarasho la'aanta waliba aad waxay uga taagan tahay gobolada iyo meelaha oo ay ka jiraan xoogaa aysan dowladdu si fiican u gaarin oo ay nimankan haystaan iyo waxaa ka jira xoogaa liidin dhinaca waxbarashada ah. marka intaba waxaan rajeynaynaa insha Allah wixii security ku saabsan, wixii ku saabsan siyaasadda, wixii ku saabsan next 5-10 years inay noqdaan aktarada ku shaqada leh oo dib looga qayb qaato. waxaa muhiim ah maxaan ku dhahdaayay maadaama deegaano badan la xoreeyay magaalada caasimadda ee Muqdishona in wax badan laga qabto. dowladda kaligeed waxba ma qaban karto. anigu waa kasoo horjeedaa wax walba in la yiraahdo xukuumadda ama madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maxay wuxuu qaban waayeen iyo wasiiradu. dadka shacabka ah ayaa laga rabaa ee magaalada Muqdisho degan gobolka Banaadir inay dowladooda la shaqeeyaan. sababtu waxay tahay amniga dowladda kaliya ma sugi karto. dadkeenu waxay u baahan yihiin wacyigelin badan. inta badan anagu waa dhahnaa, anigu hadda markii Muqdisho aan joogay qof kasta la sheekeysanayo, qofka bajaajka wada, qofka dariska ah, qof kasta waxaa dhahayay gaari haddii aad ka shakidaan waa inaad sheegtaan. qof ka guriga laga ijaarayo waa in xogtiisa la ogyahay.
waayo waxaan inta badan banaan lagama keeno guryaha lagu diyaariyaa qofka guriga iskale waxaa u xil saaran gurigiisa dadka uu ka ijaarayo waxay yihiin wuxuu ka shaqeeya in la ogaado in amniga loo gudbiyo dowladana waxaa laga rabaa qofka shacabka ah markuu arrimahaas oo kale iyo khatartaas oo kale uu soo sheego inay ammaankiisa qaadaan inaan qofka sirtiisa la gudbin hadda ka hor anu waxaan fiirsaday inaad aragteen ma aqaana wiil bajaajla ah nin uu kasoo qaaday maxaan ku rahday muqdisho banaankeeda wuxuu yiri ninka waa ka shakiyey markii checkpoint aan nimid waxaan rajeynayay in ninka checkpointiga jooga uu su-aalo badan la weydiiyo meesha baaro wuxuu yiri iska dhaqaaqa marka ninkii naxdanii argagaxay kusii noqotay waa in la baaro gaariga muqdisho ka imaanaya banaankiisa dadka saaran waa in la soo dejiyo maxaa tihiin xaggee ka timaadeen maxaa wadatiin almuhiim wiilkii wuu ku dhiiriday wuu degtay ninkii checkpointiga jooguu la hadlay wuxuu yiri ninkan waa ka shakisanaya iga reeb markuu ka reebayna ninka laftarkiisa uu shakiyey maxaan ku rahdaye isna lacag iisoo tuuruu yiri telefoon lambarkiisa halkaasaa laga helay khatarta ee kasoo gaadhay de wuxuu islahaa ninkan ammaankiiaad ku sugtay ciidamadiia gacanta ku hay nin lasii daynayo ma aha waxyar kadib ninkii waa is afgarteen isagiina waa lasoo daayay khatar iyo khalqal waxay ku noqotay ninkii miskiinka ahaa oo bajaajta waday in lasoo wacay in la yiri adaana sheegtay teleefonkiisii lahaayo wuxuu sheegay shaqadiisii inuu ka tegay inuu xitaa magaaladii inuu sii joogo cabsi ay ku abuurtay marka arrimahaas oo kale dowladda waxaa laga rabaa marka anaga dadka nidhaahno war shicib dowladiini la shaqeeya ammaanka suga sheega qofka khatarta ah qofkaas oo kale inaan la bixinin sirtiisa in haddii teleefonkiisii la helay oo kale qofkii in waqti lahaayo laga shakiyo la baaro xitaa muddo dhowr bilood ah oo la yidhahdo maxaa ka shaqeyn jirta si uuna qofkan jaanis loogu helin marka anigu shaqsiyan waxaan dhihi lahaa dadku waa inay wada shaqeeyaan gacmo wada jiray wax ku gooyaan dowladdu waa dowlad cusub shaqo badan ay haysaa oo fiican inaan iyada keligeed wax lagu sii daynin inay dadkii shacabka ahaa iyo isla shaqeeyaan sida runta walaalkay siduu sheegay dadku waxay u baahan yihiin dad xoogsato ah dagaalo badana wadankii ka dhacay waxaaba laga yaabaa qofka $100 ama wax ka yar inuu naf dhan ku halligo marka waana wada ognahay xogtu siday tahay Soomaaliya waqtigii hore 3 dabaqad jiray dabaqad sare mid dhexe iyo mid hoose dabaqada dhexaana badneed dadkan runtii ay badbaadin jiray hadda laakiin dadku waa dad tagay oo taajiriin noqday ama xag dawlad ama dad ganacsato ha ahaato iyo dad aan nolol maalmeedkoodii haysanin marka qofkaas oo kale dadku waa lagu soo gaban karaa dawladdu wax badan ma qaban karto dadkaas nolol ma wada siin karto waa ognahay laakiin qofkii soo sheegay wixii khatar ah dawladdu waxaan kula talinaa in abaalmarin yar la siiyo in qofka noloshiisa laga warhayo in la yiraahdo waa mudan tahay sidii dadka kalena ugu dhiiradaan mar labaad iyo mar saddexaad dad cilmiyeedka waan ku faraxsanahay tan ugu muhiimsan oo ah oo de haddaan la helin waxa la yiraahdo finger afdurka iyo identity card hadiisan magaalada xamar ka jirin waxa weeyaan horta iyo database oo de wax aruuriya hadiisan ka jirin waxaan noo hagaagaya oo iska yar marka anigu waxaan qabaa dowladda Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaaraha inay u howlgalaan at least 3 sano u soo hartay 6 bilood waa ka tagtay in ay raadiyaan maalgelin ay ku maalgeliyaan adeertay banaankii waxba xasiloonaday dadkii la soo dagaalamay shabaab way soo afjarmaysaa Juba iyo bayna waqti dhow ay bilaaban doontaa laakiin sahadeer bal arinta taagan oo dhaqaale in loo raadiyo waxa weeyaan in la helo database oo central oo maanta hadii hataa in noqoto aan xafiis la tagayno sida iPad-ka awoodatid fartaada saaraysa shantaada farooda soo boodayso in database hataa aysan dhaqan 2 milyan iyo bar soo xamar degan kaliya haday 500 kaliya ay aruuriyaan oo database u sameeyaan inta sanadka ha ka hartay ilaa July oo la qoro registration la sameeyo oo database loo sameeyo ilaa 3 sano soo socotana laga mar la sameeyo in baahidaas la daboolo waxaan filayaa waxaan waa qor isku dhiib adduunkana hal maalin ilaahay markuu abuurayay wuxuu sameeyay 6 maalmood buu ku abuuray
uu ku sameeyo adduunkan asoo heli kara hal maalin inuu ku sameeyo xigmada ka dambeyso xigmada ka dambeysana waxa weeyaan dowladdan Soomaaliya iyo tii horeba waxbay soo qabteen iyo kuwii kasii horeeyay laakiin waxaa la rabaa wax maaragtay inay jirto dad annaka noo fakara oo u qaabilsan security dibadda iyo security gudaha oo noo aruuriya kaliya ay noqoto ninka wasiirka mar amniga yimaada inuu bashqada kala soo baxo wax diyaar garaysan uu raaco taasaan ayaan waxaan filayaa lagu gaari karaa horumarka la leeyahay security-ka maanta ka jira Soomaaliya lagu horumariyo in la aruuriyo oo la yiraahdo 10 sano Soomaaliya sidee u ekaan kartaa maxay noqon kartaa xagga amniga taasi marka la sameeyo ninka wasiirka cusub ama ra'iisul wasaaraha cusub yimaado wixii waa u diyaar qaanadu furaya wuxuu leeyahay barnaamijkan diyaar garaysan oo la dejiyay raac taasana ayaa wasiirka u salaanaanayso in maalin walba advisor cusub iyo balbala cusub iyo dhaqaale cusub oo meel ka keen leena waxa la dejiyay oo aqoonyahaniinta dejiyeen oo professorku u soo horeeyo inuu ku dadaalaan mid labaad anigu hadda hadalka aan ka dhex baxsaday hadalka ah khatartana haysato Soomaaliya wallahi dadkeena culumta dadka cilmiga la in la ilaaliyo weeyaan oo ninkan aan wadankan hol noo joogo in adeer bal isilaali taasaan kula sii dardaarmaya marka taariikhda adduunka aad dib u fiiridid ma aragtay muxuu ahaay kacdoon meesha ka bilowda waa bulshadii ka yimid moogtahay deegaankii ka yimid marka waxyaalaha macnaha adduunka guulka laga gaaro ama Shiinaha ka dhaco ama Ruushka ka dhaco taariikhda adduunka ama haweenkii 8 Maarso sidee ku timid haweenka ayo warshado ka shaqeyn jirayo mishaarkii lagu yareeyo dhibaato loo geysto ayaa macnaha kacay macnaha waxa way dhariga maxaa kulaalka ka keena macnaha karkarka macnaha hoose marka macnaha waxa way dadkaas dhibaatooday marka aniga waxaan isleeyahay kacdoonka ka yimaada deegaanka ama bulshada 90% waa guuleysta laakiin maxaa loo baahan yahay annaga waagi hore waa sheegteen meeshii ma aragtay nimankan ay qabsadaan ama laga saaro isla markii waxa way ayaga waa ka baxaan way soo noqdaan laakiin hadda deegaankii dadkii macnaha muxuu ahaay waxyaalihii basic ahaay oo nolosha u baahneed laga daba wado ee dawladda xoog saarto aniga waxaan isleeyahay aan hubaan in arintan guul laga gaaray mideeda kale waxaan dareemay oo soo baxay runtii arrimahan hadda oo muxuu ahaay kacdoonkan socda dadaaba ka soo horjeeda dadaaba ma aragtay propaganda aan loo joogin iyo waxaan aan loo joogin iyo agajiid iyo maalin kasta waxaan maqlaysaa ciidamadii waa la diyaariyay oo xoreey lahaay xarar dheere ceelbuur labadii bilood ugu dambeeyay wax soconaya malaha laakiin waxa la yiri arrimahan dada ka dambeeyo oo macnaha sidaan aniga aan maqlay macnaha muxuu ahaay wax uun siyaasada laakiin waxaan isleeyahay dadkaas ceelbuur degan ama xarar dheere degan ama meel kasta degan wadanka ama muxuu ahaay bay degan ama muxuu ahaay Jubbaland degan kullayba way iska saari doonaan laakiin waqti ayay u baahan tahay marka waxaan macnaha muxuu ahaay dawladda kula talinayaa in arintan aan laga caajisin sidii waagi hore dadku u soo noqon jireen ay u qabsan jireen macnaha in laga ilaaliyo insha Allah wax dawladda kaliya sidaa sheegteen ay sameyn karto ma ah waa wax ma aragta dadka oo dhan oo roolkooda ama doorkooda loo baahan yahay inay wax ka qaataan taas waa mid kale waxa waaye su'aal inaan weydiiyo aan rabo walaalkay shock wuxuu yiri ciidamada tradition marka aniga tradition deegaanka ka wada ma ogi kaalkay kulay waa ii faahfaahi doontaa arintaas laakiin ana waxaan u arkaa kacdoon ka yimid ciidamadaas macawisleyda ah inaad ka wadid waxaan rabaa inaan Abay Sahro waxay sheegtay muxuu ahaay doorka macnaha muxuu ahaay haweenka waa run haweenka runtii marar badan waa ka hadalnay dhinaca siyaasadda waayadan xoogaa waana looga heliyay dhinacii baarlamaanka aan ku lahayn 24 waxaan maraynaa 19 ilaa 20% macnaha si macnaha maxoogaa laakiin taas xagee ka timid waxay ka timid bulshadeena oo weli aaminsan doorkii haweenka looga baahnay inay macnaha sidii macnaha la rabay aan macnaha loogaga tixgelin runtii haweenka oo ah from 1960 ilaa 1906 intay ku horeeyday
dagaalkii waa ogeydeen gobonimadeynii wax kasta anigu waxyaalo badan aan ka qoro waa xasuustaa waxyaalaha ay qabteen wax laga soo koobi karo inta ma ahan markii xornimadii la gaarana hal haweene oo wax macnaha jaga la siiyey ma jirin macnaha taas waa iska dhammaan doontaa laakiin waxaan walaalahayga haweenka Soomaaliyeed u sheegayaa inayna waxaas niyad jabinin ee iska sii socdaan waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho arrimahan ayaamahan socdo oo ah muxuu ahaayay jinsiga horta genderkii ayaa waxaa loo bedelay jinsi genderna waa xaraf toddobaatameeyadii yimid ama terminology timid waaye oo ah doorka haweenka iyo macnaha ragga markaan macnaha aniga fasiro waxa adduunka ay u kala saaro wax sex la yiraahdo sexka ma waxa waaye biology waa sidii ilaahay adiga ragaa tahay ilaah baa ku abuuray anigana haweenaanta laakiin genderka waxa waaye waa wax bulshada ka yimid oo dhahaya Zahro waa hooyo guriga ha joogto ilmaha dhasho ha shaqaydo macnaha muxuu ahaa Cabdishakuur waa nin raga waa wax macnaha bulshada sameysay laakiin turjubaanka hadda sida macnaha loo fasiro oo qaldan jinsigii oo dhanba waxaa laga soo qaaday nin iyo naag macnaha laba naag oo isguursatay iyo laba nin oo macnaha muxuu ahaayo oo isqaba ayaa waxyaalihii oo dhan laga soo qaaday laakiin waxa waa ujeedada dhan laga leeyahay waxa waaye xuquuqdii ama tacadiyadii dhibaatooyinkii gabdhaha Soomaaliyeed gabdhihii yaryaray loo geysanayay si annaga aan cadaalad ugu helno ujeedada dhan waa intaas hadda waxaan maqlaayay nin macallin dugsi ah oo magaalada Dhuusamareeb 3 gabdhood oo yaryar ku qufsaday mid waa 9 jir laba waa 9 jir halna waa 7 jir ayaa la yiri waa la soo qabtay sida macnaha idaacada aan ka maqlay waxyaalahaas oo dhan oo jira sida lagu xakameey lahaa laakiin annaga waxa waaye wax allaala wixii haweenka ku saabsan diintiya loo leexinaya marka arrimahaas waxaan rabaa aan jeclahay hadda ka horna waa iri haddana waa ku celinayaan xuquuqda tacadiyada gabdhaha loo geysanaya in waxyaalaha ka jira dad aqoon-yahano ah wadaada ah in loo saaro guddi loo saaro arrintaa laga baaraandego wax la isku og yahay baarlamaanka la horgeeyo macnaha si aan la isu qabsanin waan u sheegay hadda gudoomiye baarlamaanka markuu halkaan noo yimid waan u sheegay arrintan waa in maaraha dib loo fiiriyaa waa arrintan waa la siyaasadeeyay ujeedana laga lahay sida aniga aan u arko macnaha intaas ayaan ku soo koobayaa waxaan u rajeynayaa kacdoonkan socda in macnaha uu guul laga gaaro aan la siyaasadeynin Soomaaliya waxa waa dhibaatooyin badan ah ka dhacay dad masaakiin oo waxba galabsanana maalin kasta la qarxiyaa oo la baabi'iyaa marka arrintan macnaha muxuu ahaayay in gacmo wada jir ayay wax ku qabtaan haddaanaan ka qayb galin macnaha sidii ayay u soconaysaa waxaan u rajeynayaa wadankeena nabad salaamu calaykum in dadaaladan socdo in waxa waaye dowladda madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse lagu garab istaaga runtii maadaama muhiim u tahay runtii waxa waaye wadanka amnigiisa in dowladda ay gacanta ay ku dhigto howl sahlan ma ahan madaxweynahan hore u sheegayo waxa waaye waa dhibaatooyinna way wadataa runtii oo waxa waaye dagaal mar hadduu u yimaado mar walba waxa waaye waa wax walba la filaa runtii oo waxa waaye qolooyinkan argagixisada wax walba waxa waaye way awood walba isku dayaan runtii waxa waaye inay ay dhibaatooyin iyo dhagar ay gaarsiiyaan dadkan ay cabsi geliyaan runtii maaha runtii mid ama wax Soomaaliya kaliya u gaaro waa wax caalamka oo dhan runtii phenomena taagan waaye taas intaasaa ka oran lahaa walaalkay guur aad iyo aad u mahadsan tahay commentiga qiimaha badan insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waa hadda kale holna joogna laakiin Soomaaliya markaa tagna waa isla insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo walaasha Zahra su'aasheena weydiisay waxay ahayd erayga tradition waxaan ka wada markii security-ga laga hadlaayo 9kii wixii ka horeeyay security-ga waxaa lagu macneyn jiray qaab oo classical tradition waa isku mid qaab macno la wada yaqaano dadka oo dhan isla wada og yihiin tusaale hadda waxaa ka mid ah in ciidanka dagaalamaya dowladda ay ka socdaan dowlad bisna ay dagaali karto
maadaama cold war adduunka uu taagnaa jabhad iyo waxyaabahaas aad ay u yareen dagaalka inta badan wuxuu ah waxaan dhahan interstate dowlad inay waxa waaye isdagaalaan bas kaasaa marka traditional war markii dagaalka la micneenaayo traditional haddii la waa dowlad lacagtana waxaa bixinayo dowladda markaas dagaalamayso laakiin 90 wixii ka dambeeyay maadaama dagaalkii qabowaa uu dhamaaday Soviet Union kale meeshaas uu ka baxay wajiga dagaalku uu yeeshay isbedelay oo waxa arkaysaa wadamo badan Soomaaliya ay ka mid tahay waxa waaye in dagaal dhexdooda waxaan ay yiraahdaan interstate oo ah dadka wadan wada degan dhexdooda Rwanda ka mid ah Asia saas oo kale uga dhacday Congo ka mid meelo badan oo caalam ka mid waxa waaye dagaal waxa markaas dagaalka wajiga lagu yaqaan wajiga kale uu yeeshay oo ah dad dhexdoodii wadanka isla degan iyaga qori isku qaataan isdagaalaan dagaalna midka ugu xun waa kaas sababtoo ah qof walba qofka ula dagaalamayo ma caddo targetka inta badan waa shacab dadka dagaalka maalgelinaya dawladda kaliya ma ahano dad private sector arkaysa oo maal ku bixinayo dad ujeedooyin kale la arkaysa marka waxaas oo dhan waxa la isku dhahaa dagaalada noocaas oo kale waxay inta badan u bateen waxa la yiraahdo identity politics oo qof qabiil ku dagaalamayo qof diin ku dagaalamayo qof mabdi lagu dagaalami jiro oo kow ah oo dawlad uu ka baxay mabaadi yar arkaysa waxa waaye ay dadka ku soo banaan baxayaan waxa waaye ku dagaalamay marka taasna ula jeedo traditionalka maxamed hal mid uu soo jeediyaan raba idan inaan wax yar ku darsado maadaama wax badan dhanka dawladda hadeertaan aan kala socdo oo ah in dawladda hadeertaan ay wado qorshe oo la yiraahdo stabilization plan ama waxa waaye in lagu xasiliyo deegaamadii shabaab laga xoreeyay oo hadda waxaa hormuud ka ah wasaaradda arrimaha gudaha federaaleenta iyo dib u heshiisiinta uu fiqi uu hadeertaan hoggaanku u hayo ayaa mas'uulka ah oo howshaas wado meel fiican runtii waa la soo gaarsiiyay wasaaradda amniga ku jirto booliisiintii iyo waxyaabahaas oo dhan wasaaradda waxbarashada dhowr wasaaradooda runtii isugu tagay marka taasna way socotaa kole waxaan filaynaa insha Allah in mar dhow waxa waaye howlahaas iyadan waxa waaye ay soo gabagaboobaan midda kale oo xigta waxay tahay maxamed wuxuu ka dhawaajiyay in deegaamada qaar markii la qabsado laga baxo waxyaabo badan oo anaga horta aan ogeynaa jirto oo dagaalka naftirkiisa tactic uu leeyahay oo ma ogtaa markaa meel qabsatid meelna waa ku raagaysaayo waxa waa joogaysaayo ciidanka wixii oo dhan meelna waxa waaye ujeedada inaad ka baxdo waxa waaye aad ka noqotid soo marka whatever reasonka ay tahay kole iyagaa naga og meeshii laga baxayo iyo meeshii la joogayo laakiin anaga ka shacab ahaan muhiimadeena waxa ay tahay sida hadda walaasha saare ay sheegtay in dawladda lagu garab istaago runtii taageerana lagu muujiyo la taageero meel walba oo la joogo si waxa waaye howshaan sida ugu dhaqsiyaha badan waxa waaye u soo dhamaata haddii la yiraahdo aniga fikirkayga aragtideeda waxaan wax u arko layguma xiri karo waxba dembiya ma aanan geysan fikradeydan cabiri karaa aniga maanta saa aniga u hadla hadda adiga si qaladaad u fahantay inaan qof critic ku ahay aad ii fahantay xaqaad u leedahay inaad i su-aasho ilaan waa fikradaadii aad dhiibta ma ogtahay laakiin maahan qofka in lagu caqabadeeyo ama shaati qofku wuxuu u fahmayaa shaatiga dawladda macnaha waa kala aragti duwanna aan qaybsanno laakiin haddaan dembi galay maxkamad isaar igu caddee ha laygu xiro inta aan raadinaya intaas waa waxa Soomaalidu moogtahay dhibka jira waxay tahay xaqiiqda lama sheego madaxweyne xasan sheekh iyo teamkiisa iyo xisbiga coalitionka uu leeyahay daljir dadaal u soo maray 5 sano la soo dhaafay moogtahay 5 sano la soo dhaafay way soo dadaaleen doorashooyina la soo galay doorashooyinka hadii la soo galeen dadkii guuleystaa wax iskale I don't expect haday waxa tir farmaajo I don't expect farmaajo in loo waco oo waxa loo kale aan ka tala galiyay xashaq asaga siyaasadiisa degsanayo asaga arrimaha dibadda og asaga amniga wuxuu waxa uu ka qabanayo og asaga policy sameeyay dadku isdhihi karo way kugu caawinayaan hawshan asaga xisbigiisa kamid ah iyaga boosaska qaadana iyaga shaqada wadaayo waxaan ku soo gabagabeynayaa laba arrimood oo muhiim ah
haddaan nahay diasporadii waxaan u taaganahay garab istaaga dowladeena iyo ciidamada xoreynta meel walba ay joogaan dowladda maanta jirtaan waxaa looga baahan yahay dhaliilaha jira sidii xal loogu heli lahaa oo ay ka mid tahay prime ministerka ama xukuumaddu waxay iclaamisay in gunooyinka shaqaalaha rayidka laga jaro aniga as security nin aqoon-yahan oo security-ga barta aan ahay uma fiirinayo dhaqaale darri dowladda haysata maanta waxaan ku jirnaa caqabad la dagaalan argagixiso waxay sahlaysaa shaqaalihii rayidka ahaa ee gunooyinkooda la yareeyey in ay dadku ma wada aha nationalista ma wada aha dana isku haysa in ay fududeeyaan taasna aniga waxaan jeclaan lahaa xukuumadda iyo madaxweynuhuba inay ka fiirsadaan dadka rayidka ah in si qaas ah oo dowladda u shaqeeya in si qaas ah loo tixgeliyo dhibaatooyin ay ku dhex nool yihiin oo caqabado ay kala kulmaan argagixisada taasi waa mid meesha taagan waxaan dhihi lahaa madaxweynaha maanta talada dalka haya madaxweyne maahid nin cusub maahid oo waxaa tahay nin kursigan iyo maamulkan khibrad hore u leh haddii meelaha qaar xanafyadiisa kusoo gaartana dee maahan mid nacayb shakhsiyadeed maahane waa kala aragti duwanaansho systemka midda aan rabo oo qaaska iyo aan rabo inaan kuu sheegana waxay tahay madaxweynuhu xisbigaaga iyo xisbiyada coalitionka kugu ah madaxweyne ma uu hide ummadda soomaaliyeed aad madaxweyne u tahay albaabka dadka u wada fur dad badan oo aqoon-yahano ah ayaa jira wasaaradaha qaar waxay u baahan yihiin dad aan xisbigaaga iyo coalitionka intaba ahayn oo expertise ah oo ka shaqeeya xaaladda ama jaangooyinta policyga dowladda hadday noqoto arrimaha dibadda hadday noqoto amniga hadday noqoto gaashaandhigga hadday noqoto qorsheynta economiga intuba waxay u baahan yihiin dad badan oo Soomaali ah oo aqoon-yahano ah oo fildiyadaas oo dhan aqoon u lahaa jira oo u taagan inay garab siiyaan dowladda laakiin waxaad moodaa wixii oo dhan in lagu soo jaangooyay in xisbi ama group gooni ah inay ku maceeshaan taasina dadka way kala fogeynaysaa waxayna fududeynaysaa waxyaabo badan